Asalaamu calaykum wadaagayaasheena sharafta iyo qiimaha badanow. Waxaa hubaal ah in badankeen waa inteena 20 sano ka weyne aan 10 sano ka hor isticmaali jirnay taleefanada ay leedahay shirkadda Nokia. Qoslaye ila dhimo magacii la rabo waa lagu yaqaan gobolka aad ku sugan tahay. Adiga ayaa commentiga noogu soo qoraye. Waxay Nokia samaysay mid ka mid ah taleefanadii lagu iibsiga badnaa abid taariikhda. Waxaa kale oo xusid mudan inay sidoo kale Nokia lahayd taleefankii labaad ee lagu iibsiga badnaa. Dabcan haatan way sameeyaan taleefanada casriga ah ee smartphoneska oo waxaa la wareegtay shirkadda yiraahdo HMD Global. Haddaba maxaa ku dhacay shirkaddii Nokia? Maxaa keenay hoos u dhaca intaas leeg? Magacaygu waa Cabdiraxmaan Alyaasiini. Halkanina waa Kuryaal. Kusoo dhawaada muuqaalkeena. Hana hilmaamin inaad subscribe saadho sidoo kalena muuqaalka like saadho. Nokia sida magaca ku xusan waa magaalo yar oo ku taala waddanka Finland. Waana meeshii lagu aasaasay shirkadda Nokia. Waxay shirkaddan bilaabmatay sanadkii 1865. Waa 150 sano ka hor. Xilligaasna waxay samayn jirtay waraaqaha ilaa 100 sano ee ugu horreeyay. 1960-yadina waxay ku milmeen shaqadoodii oo ku dareen samaynta taayirada iyo xargaha. Waxayna soo galeen saaxadda taleefanada sanadkii 1981 markii ay la wareegeen shirkad Finland laga leeyahay oo taleefanada soo saarta. Waxay isku wateen hawshoodii ahayd soo saarista taleefanada xanshiyaha taayirka. Run ahaantii waxaa la dhihi karaa focuskoodu ma ahayn meel kaliya ee waxay noqotay in shirkaddii Nokia ay samayso iib badan balse faa'iido badan aan samayn. Waxaana khasab ku noqotay in ay dib baaritaan ugu sameeyaan suuqa kadibna inay aayar ula wareegaan suuqii taleefanada. 1980-yadii waxay bilaabeen inay sameeyaan taleefanada qaab casri ah loo naqshadeeyay. Waxayna soo jiiteen indhaha dadweynaha. Run ahaantii waa socotay muddo ku dhow ilaa 30 sano. Intii u dhaxaysay 90-yadii ilaa 95 waxay noqdeen taleefanada aadka loogu iibsiga badan yahay. Xataa qiimaha shirkaddu ee suuqa waa uu siyaaday 10 jibaar. 1998 waxayna noqdeen shirkadda loogu isticmaalka badan yahay adduunka. Waxayna haysteen suuqa 10 sano soo socday. Aan kula wadaago sababta. Waxaan iraahday bilowgii muuqaalkeena in taleefankii ugu iibsiga badnaa uu ahaa Nokia, balse waxaa kaloo xusid mudan in taleefankii labaadna uu ahaa Nokia. Sidoo kalena marka aan eegno liiskan waxaan arkaynaa in Nokia ay leedahay 7 ka mid ah taleefanadooda ay ku jiraan kaalmaha ugu horreeya. Sanadkii 2008 waxa uu ahaa sanadkii ugu iibsiga badnaa abid ee shirkadda Nokia. Waxayna iibisay taleefano gaaraya ilaa 472 milyan. Halka Samsung sanadkii ugu fiicnaa ay ahayd sanadkii 2008 waxayna iibiyeen 295 milyan. Apple-na waxay gaday ilaa 209 milyan. Dhanka kale sheerka suuqa Nokia waxay gaartay ku dhawaad 40% halka Samsung iyo Apple haddii la isku darona aysan u dhoweyn intaas ay gaadhay shirkadda Nokia 2008. Faa'iido ahaanna waxay aad u faa'iiday sanadkii 2007 oo ay soo xareysay ilaa 51 bilyan iyo 8 bilyan oo faa'iido ah. Haddaba marka aan eegno xogahaas waxaa maankeena ku soo dhacaya maxaa ku dhacay shirkaddii Nokia ee sidaas ahayd? Dhibaatada ugu weyn ee heshayna waxay ahayd taleefanada loo yaqaano smartphoneska. Taleefanadii ay Nokia samayn jirtay waxay ahaayeen noocaas waaweyn ee ma ahayn smartphoneska, balse waxay soo saari jireen dakhli aad u fara badan iyagoo aadna ugu fiicnaa samaynta noocyadaas umana baahnayn agab iyo baaritaan fara badan. Markii smartphone-kii ugu horreeyay ay soo bandhigtay shirkadda Apple sanadkii 2017 si fiican uma gadmin oo 5% ayuu suuqa ku gadmay. Halka ay Nokia sidoo kale bilowday samaynta taleefanada smartphoneska isla sanadkaas waxayna sameeyeen suuqa lacag gaaraysa ilaa 50% smartphoneskoodu. Haddaba maxaa keenay hoos u dhaca smartphoneskii Nokia? Sababtuna waxay ahayd waa operating system-kooda oo aan aad u fiicnayn. Marka aad eegto Apple aad ayay u horumariyaan operating system-kooda. Dhanka kale taleefanadii hore ee Nokia waxaa operating system-koodu ku eeka oo kaliya qof ficid iyo inaad idaacad ka dhagaysato. Nokia waxay dadaalka saadhay inay samayso taleefano tayo leh waa hardware balse operating system-ka waxa uu samayn jiray shirkadda la yiraahdo Symbian. Waxay ahaayeen kuwo aysan dadku soo dhaweyn. Waana tan ugu weyn ee keentay in dad badani ka wareegaan shirkadda. Sanadkii 2011 waxay Nokia go'aansatay inay u wareegaan isticmaalida software-ka Microsoft. 2014 waxay Nokia iibisay qaybteedii taleefanada waxayna ka gaday Microsoft qiimo lacageed gaaraya ilaa 7.2 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, taas oo keentay wareer siyaado ah. Waxayna u keentay shirkadda Microsoft taas oo aakhirkii dib u gaday lacag gaaraysa ilaa 350 milyan. Nokia caqabadaha ugu badan ee helay waa isdhigasho. Waxay ku ekaadeen oo kaliya taleefanadii hore iyagoon dheg jaraq u siin mustaqbalka iyo smartphoneska, iyo sidoo kale iyagoon juhdi dheeraad ah gelin operating system-ka ay ku shaqayn lahayn smartphoneskoodu. Waxay sababtay hoos u dhac weyn inuu ku yimaado
maadaama maanta ay 80% dadku isticmaalaan taleefanada loo yaqaano smartphoneska. daawade haddii aad isticmaashay Nokia smartphoneskaada fadlan noogu waran siduu ahaa. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. fadlan like saar muuqaalka sidoo kalena ha ilaawin inaad subscribe saadho muuqaalkeena. mahadsanidin.